السلام عليكم صاحبada ku xiran dayax official kusoo dhawaada maanta iyo qiso jacayl oo aad iyo aad u xiiso badan ummadda Soomaaliyeedna maanta ay ka bixiyeen aragti kala duwan jacaylkan wuxuu u dhaxeeyaa laba qof oo kala warla laba qof oo kala fog laba qof aan is aqaanin laba qof aan wali isla hadal laba qof aan wali ishooda isu dhamayn marka jacaylku sidiisa dhanba waa aragti iyo ka helid Carafaad oo ku nool magaalada Hargeysa ee waqooyiga Soomaaliya ama Somaliland ayaa wuxuu jeclaaday xildhibaanada Ilhaan Cumar ee joogta amba ku nool wadanka Mareykanka ahna sanatarad ka tirsan xildhibaanad Ilhaan sida ognahay waxaa la furay isbuucii la soo dhaafay meelahaas saygeedii Axmed Xirsi kaas oo isu dhaleen caruur ilaa 3 caruur ah nasiib xumo way kala tageen oo waqtiga waayaha kala hiiliyay hadda waxaa soo baxay wiil Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo jacayl daran u qaba gabadhan Carafaad oo warbixin ka bixinayay ayaa wuxuu sheegay in uu jeclaaday xildhibaanad Ilhaan Cumar waagii ay u tartamaysay in ay ka mid noqoto Congress-ka Mareykanka waliba oo lalihii markay ku jirta ay wuxuu sheegay in markaas qalbigiisa ay saameysay si aadan u jeclaaday dadka Soomaaliyeed oo ka dhiibta aragtiyo kala duwan ayaa qaarkood ku tilmaamay jacaylkiisa in uu yahay mid ah inuu ka helo xildhibaanada maadaama ay tahay qof mas'uul ah Mareykankana ka ah madax in ay ka helo lacag fara badan qaarkood waxay ku tilmaameen in uu doonayo in uu ku tago wadanka Mareykanka passportna ku helo qaar kale ayaa waxay ku tilmaameen hamigiisa in uu yahay kaliya in uu noqdo qof caan ah marka aan fiirino saddexdan qodob oo ummadda ama dadka Soomaalida oo baraha bulshada isticmaala ay ka dhiibteen waxaan dhihi karnaa waxa u dhow qodobka saddexaad oo ah in uu noqdo qof caan ah maxaa yeelay horta jacaylka ma la diidano laakiin qodobkaas waxaan anaga u dooranay ka dayax official ahaan macquul ma aha in labadooda ay kulmaan amba xataa nolosha ay wadaagaan marka aan fiirino ilaa adiga boqolkiiba 30 oo waa laga yaabaa maxaa yeelay gabadhan sida ognahayba waxay mashquul ku tahay maalmahan dagaal ama hardan kula jirta madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump marka fursad ay muuqaalkan ay ku gaarto ama ay ku aragtay xataa waxaan dhihi karnaa way iska yar tahay midda kale aan qodobkan u qaadanay waxay tahay inuu caanimadoon yahay masaafada amba dhulka u dhaxeeyo macquul ma aha Mareykanka waa cirifka ugu shisheeya adduunka oo ku yaala iyo wadanka Soomaaliya oo ogta inuu ku yaal geeska Afrika taasna waxaan dhihi karnaa jacaylkan muhiimad weyn oo ka leeyahay ama warbixintan maanta uu bixiyay Shucayb aan dhahay Carafaad inay tahay caanimo inuu caan noqdo qof caan u noqdo markaan xaggaas ka fiirno Soomaalida sida ognahay dhalinyarada waayadan dambe qof kastaba waxyaabaha caanimada uu ku gaara ayuu sameynay laakiin midna markii la eego meesha jacaylna kama saari karno markii loo fiiriyo in uu jacaylkiisa soo waday ama gabadhan oo jeclay muddo ku dhawaad ah 2 sanadood marka jacayl dhab ah jacayl dhalanteeda ma socon kariyo wax adiga 2 sano gaaray ma socon kariyo ayadana dhihi karnaa Soomaalida hore ugu maamahday jacaylkii dilay boodhari toxobayna dhaga tiray marka jacaylku horta marka jacayl aan u soo gudbino wax sahlan ma aha waxa laga yaabaa inaad jeclaato adiga qof aadan aqoonin inaad markaas ka hesho qaabkiisa qofkan geelid ay timaado ka bacdi jacaylkaas uu ku imaado waa laga yaabaa marka jacaylku waa wax dhammaan dadka ay ku dhasheen waana wax waligiis soo jiray waana wax sii jiri doono dadka isjeclaanaana ku mixirno reer ku mixirno degmana ku mixirno da'na ku mixirno oo waxa laga yaabaa laba qofood oo aad iyo aad u kala weyn amba aad iyo aad u kala yar in isjeclaadaan ka bacdi nolosha wadaagaan Carafaad laakiin jacaylkiisa jacayladaas uu ka duwan yahay dad isku dhow ama meel isla joogo oo ay gaari karo badanaa arki jiray oo isjeclaada laakiin Carafaad jacaylkiisa aad iyo aad u soo jiitay dadka Soomaalida meel kasta joogan caalamka maadaama oo jacaylkiisa gaaro qof ka fog masaafooyin fara badan oo naxariis arkin laakiin wuxuu sheegay inuu qodbooyinkeeda cajiibka ah gabadhan oo ka helay iyo sida doodaha ay u qayb gasho in uu ka helay sidaas darteedna oo jacayl daran u qaaday marka waxa uu rajaynaynaa in uu guuleysto jacaylkiisa helana xildhibaan Ilhaan muuqaalkii oo Carafaad waa kana nala daawada oo ku codsanay in jacaylkiisa ay soo jawaabto tahan ayaa saaka Carafaad kula kulmay magaalada Hargeysa waxaanan ugu horeyn wax ka weydiiyey goorta ku dhashay dareenka jacaylka ah ee uu qaaday xildhibaan Ilhaan Cumar
Saan TV oo salaamaya arrintan waxay ku dhalatay muddo ka hor markii ay ololaha bilowday Ilhaan Cumar ay u tartamaysay kursiga Koongareeska ku guuleysatay muddadaas muddo badan laga joogo sanad dhadhowa muddada waa jeclaa intaabana waxaan dhowr email baan u diray dhowr meelood kala maro ka duwan baraha bulshada si aan u helo laakiin waa suurtagal weydii taasoo ka liftay markaa inaan baahino oo ku baahiyo baraha bulshada warkaagii bulshada u gaadhay aad baad u baahisay maxaa feedback kaaga soo noqday ma falcelin Soomaalidu inta badan waa warkaad waa la qaadaa dhigay baraha bulshadana uu galay arrimo badan bay iga yimid kamid tahay caanimo doonaya inuu dhoofaabo doonaya Ilhaan doon maahay waa wax kala doon dhaqaalo doonaya wax adoo dhowrka qodob bay iga yimid laakiin waxaan ka cadeynayaa inta mid waxba ka jirin ee meesha jacayl yaalo Ilhaan aan jeclahay jacaylku wax la isku yaaba maaha waa de Soomaalidu hore boodhar ugu dishay jacayle de waxa way la yaabeen moodadka Soomaaliyeed inay leeyahay qof baan jeclahay marka waa arintani waxay isugu soo biyashubaraysaa gunteedii gunaanadku inay tahay jacayl isla markaana de feedback ka sugayna de Ilhaan inay jawaab celinteeda Ilhaan Cumar waa qof caan ah waa xildhibaan ka tirsan Koongareeska Mareykanka adiguna waxa tahay wiil dhalinyaro oo ku nool magaalada Hargeysa arrintaadani inay ku suura gasho rajaynta laga ka qabtaa waxaan ka qabaa rajo fiican ma sha Allah in arintani muhiim in Ilhaan gaadho ruuxantana saan jeclahay waa gaadhay iyadoo kulli raanti wax la yaab leh uma aragto oo waxaan rajaynayaa in arrintaas mid dhal fiican ay yeelato isla markaana dad jacaylkiga isalada muhiimadu waa inta maadaama jeclahay waana wax dhaco oo la jeclaada maaha wax iyada kulli la yaab ku noqonaya dadka kale ee Mareykan iyo dadka xilka u haysta iyo dadka doorteena maaha wax la yaab ku noqonaya diimka Ilhaan Cumar muuqaalkaagan ay daawato isla markaana jacaylkan aad u soo bandhigtay ay daawato ugu dambeyn maxaad halkan fariin u marinaysaa fariinta la kulmanay waxa weeye Ilhaan inaan hore isugu dayay dhowr meelood hore email la aynan ku helo meelo badan soo maray xiriirkayga dhowr jeer hore baraha bulshada ku baahiyeen meelaha kala xiriiro Ilhaan la siiyo laakiin taas maadaama ay dhici weydii hadii muuqaalkeen Ilhaan aragto waxaan fariintan u diraya waxay tahay in Ilhaan aan jeclahay muddo dheer jeclaa ruuxantii khudbadeeda waqti badan ku qaato maalintii 2 hawrsan daawada khudbadeeda iyo barnaamijyadeeda sidaas awgeed tixgeliso codsigayga Ilhaan Cumar ka hor xiriidho kala duwan haasawe waxyaalo noocaas ma sameyn jirtay horta ruuxantii nolosha ku faraysan haasawe samayso waa de nolosha inay qayb ka tahay in xiriir lamaane la yeesho in de rag iyo dumarta isku xiriin laakiin wax jacayl ah oo la xusi karo oo ka Ilhaan wax ka horeeyay wax ka dambeeyay ma jiro ma wixii hore dambe wixii dambe wixii hore haynaga maqlaan wixii dambe